السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركل يولا الكين محمد حسن وإذا كسر دوادا سمكة أما الصومالي أكاديمي. Please visit my website كي قدا صوبوغو sam/akad blogspot.com 10 بدن إن شاء الله تعالى كم مناقشون دونه إن شاء الله تعالى ما أنتن وحبلاوينا 10 عصب ما تحنا 10 تحنا نو هادون عصب 10 ذي كل أو سيدا ويندوز سيدا how to design blog ونص عذا ما أنت إن شاء الله تعالى وحبلاوينا وحلا programming وحبلاوينا ما أنت Java programming أما سيدي لغة وح كمبيوتر كلغة programming أما لغة كمبيوتر وح لغة برو ما هاي الكمبيوتر كوا machine so ابن آدم كو فهماني وين اللغة جونية كمبيوتر كإيو كمبيوتر كإيو قفك أو دحيس هذيك المشين يخفك يسفهمي معايا marka luqadan waxay u dhaxaysaa computerka iyo qafka marka insha Allah taala marka hore sida computerka sida luqada isticmaasho computerkaaga ama program u qorto waxa u baahan tahay software marka ugu horeyso waxa u baahan tahay wax la yiraahdo JDK marka JDK si loo soo dhulgaray waxa gashaa oracle.com internet marka oracle.com ay gasho waxa soo dhulgaraysataa JDK kii ugu dambeeyay حاجة سري داونلود أريكتها داونلود كليك وسي حاجة سوري حاجة دعبهن كان داونلود كليك وسي جافا اس اي مركز سوق شو جافا اس اي داونلود وحكليك وسي ماشى محارته جافا بلاتفورم كاسو جي دي كي فرشين بدنا جيرو I think you know فرشين قدام بيه مركان أندوبة يهدا فرشين قدام بيه هو 8 لقيا بيه مربل بوالسي كرديا مركان أنت وحكويا له جافا platform انتنا waxa yaalo JDK with netpin waan baradona waxa la yiraahdo netpin iyo JVK insha Allah taala hadda waxaan download gareynaa xagan version ugu dambeeyay markan oo Java platform JDK 8 waxa laga yaabaa inay 9 soo baxo waxa laga yaabaa inay 10 adi mar walba update lagu sameeyaa 7 jiro 6 jiro marka hadii aad Windows 7 ama 8 isticmaalayso waxa download gareysataa 8 so click to see download waxa ku keenaya Windows kan mar walba ugu 8 ka version badan uu leeyahay marka waxa sameeyay ka ugu dambeeyo mar walba dooro xagan accept license agreement free weeyaan oo wax lacag ama wax no need payment no need to pay anything meeshan versionadu ku saaran operation systemada kala duwan Linux Mac Solaris Windows marka aniga hadda waxaan focus ka saarayna Windows xagan hoose Windows version ka isticmaalaysa 86 ama 32 bit ma isticmaalaysa ama waxa isticmaalaysa 64 bit marka isticmaalayso ku xirta click ku si مثلا aniga kale waxaan isticmaalaha 64 bit click ku si download ani already waa download garay xaga ku download gareysatag marka meesha ku download gareysata aad tagto waxaad faylka aad arkaysaa click ku si marka click ku siiso wax ku furmayo Windows yar oo sidii software computerkaaga ugu duubi lahayd processka raac okay yes processka marka raacdo laga yaabo waqti badan inaga qaadanaysa hadda hadii aan dhaho process kan raaca one by one waqti badan ay qaadanaysa maxay waxaan rabaa inaan ku soo koobo video gan less than 10 minutes next Java now Java SE ama development kit computer ku shubnaha waxaan sugaynaa insha Allah taala waan soo noqonaynaa markuu dhamaadan ku soo noqonaynaa markuu meesha ku keeno waxa dhahdaa next meesha waxa bedelaysa destination folder iyo waxaas hadii intuu sii wada hadii aan fiirinayo computerkana Java yaqaan in kale waxa tagtaa xagga tag waxa soo furtaa CMD ama sidoo fudud Windows logo iyo R isla qabo run waxa ku qortaa CMD markaad furto hadda meeshan oo kale hadii aan dhaho Java computerka ma yaqaano Java hadii aan qoro Java C labada computerka ma yaqaan laakiin markii hadda aan software kan u dhameeyo oo computerka ku shubmo oo arkayna intuu yaqaano wayno dhamaaday hadii aan hadda meeshii ku noqono aan fiirino inuu computerkan Java yaqaan in kale Windows logo iyo R isla qabo markaas la qabato waxa qortaa CMD oo command line ah hadda markii Java wanaga diido ma hadda maxaan qornaa Java bas qor bam information kan nasiina oo yani macnaheedu waxa tahay inuu computerkan yaqaano Java دي هذا حاجة في ريسيت Oracle Technology Java يعني وحكت سيسا إنه كمبيوترك Java يقانا for more detail okay marka computerka kugu shubma 10ka
hadda waxaan ku shubnay software-kii. Hadda مثلا haddii aan tagno marka hadda computer waxaan baraynaa marka path waxa la yiraahdo. path waxa weeyaan si computer ku aqoonsadaa meeshuu ka soo roon garaynayo Java. marka haddii aan hadda tagno مثلا meeshaan ku save garaynay Java مثلا haddii program tagtid xaggan waxaa aragtaa Java هذا C programming file Java tag Java موجود Java JDK 1.8 يعني 1.8 وحلمتها 8 1.7 وحلمتها 7 1.6 وحلمتها 6 version 6 so كليكو سي pin كليكو سي أي software أما فايل كسو ماشان كجرو أما محور ماشان كجرو ميت كميد right كليكو سي properties tag waxaan rabnaa waxa la yiraahdo location xagga waxaa ka aragtaa location kaas rabnaa inaan copy dhahno right highlight sar right click leh copy leh iska xir mu baahnid kan iska soo xir my computer tag haddaan windows 10 isticmaaloha my computer right click see property tag properties markaa tagtid xagga waxaa aragtaa advanced system setting advanced system setting حق كليك سي ان او soo darno waxa la yiraahdo path meeshan waxa soo xaqataysta tagtaa environment variable meeshan waxa ku dareynaa variable ama path click si new meeshan waxa ka dhigtaa path meeshan hoosena waxa paste ku dhahdaa waxa aan soo copy gareynay paste ku ne okay de click de okay de hadda kan iska xir هذا مثلا waxaan tagaynaa computerkeena hadda Java waa naga diiday laakiin hadana waa noo yeelay hadda marka waxaan soo download gareynaynaa si waxaan computerka ku ran gareyn lahayn kaasoo ah waxa la yiraahdo Eclipse software badan jiro laakiin aniga waxa ila fiican waxa la yiraahdo eclipse.org gal marka gasho download soo dheh software nooc version badan meeshan ku yaalo versionka ku fiican waxay kugu xiran tahay download click ku sii marka download click ku siiso meeshan waxa yaalo version badan noocyo badan ah oo ku saabsan laakiin waxa markaad aragto Eclipse IDE for Java developers meeshan waxa aragtaa for Windows 32 bit ama 64 bit مثلا waxa haysataa 32 bit version isticmaalaysa click ku sii 64 bit version isticmaalaysa click ku sii أنا هذا 64 استعمالوها مركا كليك وسي واحد كليك وسي حقا داونلود كليك وسي مركا داونلود كوسي وكوسو دجسمه سو دجسو مركاس وين رار واي انزب ده ديسكتوب كسار هذا مثلا هذا ديسكتوب تقنو اكليبس واكنا هدي انفرو هدي اكليبس واكنا ان رن ده كي 1 وحركيسا waxaan leeyahay inaan workplace aad doorato hadda rabto mid adiga leedahay soo abuuro kartaa process adaysa kadib folka abuurta click soo dhaysa laakiin wax kula talina just use the default okay click see okay never mind you say that I can agree just browser de mid adiga leedahay soo dooro click see back up okay click see marka soo doorto workstation laga yaabo inuu ciladaas oo kale ku keeno folderka abuurtay soo dooro click ku sii inshallah haddana waxa cashirka saddexaad aan keenaynaa how to run your first Java programming how to yani shashada si loogu soo muujiyaa waxa la yiraahdo Java code kaas inta qortay markaas uu noqday wax la isticmaali karo ama la fahmi karo markaasaan ku soo baxdo xagga kore click ku sii marka click ku siisa xaggan waxa ku soo baxayo Windows kana ku soo baxayo xaggan kore click ku sii new de waxa abuurayna hadda new project file ma abuurayna new project click ku sii Java project yan abuurayna next Java project click ku sii next de magaca u bixinayna marka مثلا waxaan dhahaynaa first program first bro oo waxay ka taagantaa first program finish aan dhahaynaa hadda project aan abuurnay hadda isla projectiga abuurnay waxaan ku daraynaa marka hadda glass aan ku daraynaa
هذا first program كوسا بحي حاجة هوست دجي SRC مش كارتا right click كسي new حاجة سكوارتا new click كسي حاجة محارتا java class sorry class click كسي class كمجا أو بحي وحنو بحيننا class كمجا عيسى السلام محيلو حربنا إن الصوم بترجرينو وحل يرادو السلام عليكم السلام public اوكي كده هادو حابورنا كلاس كاسو empty ان شاء الله تعالى 10 ويسو سocdaan waxaan baran doonaa waxa class la yiraahdo iyo waxa ay kala yihiin iyo already waxaan mid aan kala fiirin doonaa marka hadda san ku soo baxo hadda waxaan abuurnay class kaasoo ever ah mesela hadii hadda aan run dhaho the selection cannot be launched there is no current launch okay marka waxaan ku dareynaa waxbaan ku dareynaa waxa soo faa'iido lahaanayo marka hadii hadda public method aan ku darno methodkii ugu horeeyay public static void main string don't worry waxaan dhan waa baran doonaa argument hadda waxaan soo birtirgareynaynaa waxa la yiraahdo assalaamu calaykum system.printout println meeshaan waxaan dhahaynaa assalaamu calaykum java meeshaan waxaan kusoo xiraynaa labada qowsayn hadda haddii aan run dhaho waxaa noo soo baxayo السلام عليكم حقها هوسه مثلا هذا دي ان سيف له سيف ده حقها هوسه محركته run سلام دو جافا كليك سي حقها هوسه محركته السلام عليكم جافا اكبدل كرتا السلام عليكم program سيف ده run السلام عليكم program ان شاء الله تعالى عشان وي سocdaan one by one aan kala baran doonaa waxa waxay kala yihiin public class muxuu yahay public static void main maxay tahay system to out println muxuu yahay agreementigaas oo gudaha la geliyay maxay casharadaas oo dhan waan baran doonaa daawashada aad daawato ku maasan tahay insha Allah taala casharada la soco kuwa kala soo socda please subscribe si casharada ula socotid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh